خيركم كلكم إلى تليمي أيامها كلتي قلب كبيرة وحكمدها أقول المدعوينه الشعب كصوماليات ميل كستو الجوجات سيدي أي حالة يكون دويين واقول هو أركيز gaar ahaan dadka muqdisho jooga sidii ku soo dhaweeyeen waa arkiis tawahaas lagu soo dhaweeyay iyo heerkaas lagu soo dhaweeyay hoos ha uga dhaco maalintii ayada ay taladii aan siiyay iyo maanta meesha uu joogaa farmaajo waa arkaysaa dadkii xaq sida way ku soo dhaweeyay oo ku faraxsanaa doorashadiisa ku faraxsanaa hoggaankiisa iyo hoggaaminimadiisa ayuu maanta wuxuu ugu bedelo abaal uga dhigay inuu xabad iyo dil ayuu abaal uga dhigay waxaan aaminsanahay siyaasadda Soomaaliya farmaajo si xun buu u soo galay meel xun uu ka soo galay siyaasina ma aha hoggaamiyana ma aha muwaadinna ma aha waa nin dowladnimada iyo siyaasadda si qaldan u fahamsan xoog iyo caburin iyo dictatornimo u fahamsan waa insha Allah taala siyaasadda talada dalka iyo hoggaankiisa halkan uu ka jiro annagana saacadan laga bilaabo waxaan sheegaynaa doorashana ولا هذا الكلام قريب غلط تهتم به أصلا تهتم بايو ندم بيلو إن الصحيح ومحكمة لسوتها يقول ما انتهى وكذا وي باش عالم كوحنا من أنا أشيب أيام الرواي عونات تنجيدي كوكي أساسي أي أيام الشعب الصومالي يقول رايه إلى علمت أمسهم إلى علينا يسمين كدكتاتور كان أيام الرواي شروعda adduunka ka soo horjeeda sharciyada dunida oo dhan ka soo horjeeda dictator marna sax ma aha in dadkiisa asagoo leenayo la ilaaliyo sax ma aha waa arkayseen dad nabdoon oo mudaharaadaya oo hogaamiyaashoodii iyo shacabkoodii oo dhan wada socda inay xalay ilaa maanta ay maaragtay xabadeenayeen oo leeynayeen waa arkayseen sidaas inaad ku dhowrataan waxaan u aragnaa inaad raalli uga tiinaa u aragnaa ليش عالمكم وحنو أرجنا فرماجو يوحى وسمينا إني رالي كيجينا وأرجنا شعب كصوماليا سلاس بيو أركان حديك كلام فلكات فلك الدول أيام وباحنا يقولوا قبلنا الصوماليا وحن تعود سنينا من كان يجي عبك أو شعب كصوماليا سلاس أركتب ولينا من ترى الصوماليا إن الله صوماليا سكان وكي مادان هاي صح معها أو إيماننا خلا فريساننا وأنا إنا صوص صارتان وحى وسمينا يوحى إيه إن حيندا كدول نمط كبحث إني تاي وأنا صوص صارتان haddii kale oo aad u timaadaan oo la fariisataan waxaan u aragnaa idinkana dambigiina la wadaagtaan oo la mid tihiin aan u aragnaa aad u mahadsanid wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم حليتو رجعنا halkan taagan waxaan qabanay shirkaas jaraa'id wuxuu ku saabsanaa in labadii madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ka horreysay iyo guddoomiyihii baarlamaanka Soomaaliyeed hore saddexdooda lagu weeraray hotelkii deganaayeen iyadoo lala damacsanaa dil maanta waxaa ku xigtay in murashaxiintii iyagoo bannaan baxaya oo adduunyadu ay fiirsanayso soo xabadeeyay xabadihiina الله عافيه انت دمتنا الله ونحرسته dad Soomaaliyeed ay ku waxyeeloobeen isla xabadihi ishi dhaqaale oo dalka Soomaaliyeed uu lahaa oo ahaa aeroboortka xabadihi annagana la ku soo riday ayaa aeroboortkii madaafiica ayaa aeroboortkii madaafiicda ay ku rideen ayaa gubanaya Soomaali waxaan rabaa inaan marxaati gashado maanta meesha aan taaganahay anigoo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya soo kama digin Soomaanan dhihin hadii la isku dayo in xukun la boob hadii doorashada aan heshiis lagu noqon hadii la isku dayo in kaligiita la isnoqdo in dhibaatadan u dhaxayso habeenkii aan ummadda Soomaaliyeed u tanaasulay waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegay in aanan rabin inaan qayb ka noqdo dhibaatada ummadda ku soo socota hadii dariiqan lagu sii socdo meeshii baan taaganahay aan ka digay anigoo xukunka jooga iyo anigoo dibadda ka ah meeshii hadda dalkani uu taagan yahay dawlad waqtigeedii dhamaaday madaxweyne waqtigiisa dhamaaday oo ay xabad kaliya uga soo hartay duniduna nagu ixtiraami mayso Soomaalina ku horumari mayso
meesha hadda ummadda Soomaaliyeed ay taagan tahay hal xal kaliya ay leedahay inta rabta inay dalka u turto inta aan rabin in dalkanu hagaago waa inay ka hor tagto inta rabta in dalka la taraantureeyo inta rabta in ummadda Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ay mustaqbal waafi ah yeeshaan waa inay ka hor tagto inta aaminsan fikirkaas ka soo horjeeda dowlad goboleedyada waxaan rabaa madaxdooda inaan u sheego waa madax Soomaaliyeed oo aan waqtigii muddaxiloodkoodii dastuurku siinaya aanu dhammaan oo sharci ah waa inay ogaadaan mas-uuliyadda ugu weyn dalka iyagay saaran tahay mas-uuliyad miisaaman waa inay ku shaqeeyaan oo macnaheedu tahay iyagaa laga rabaa xalka ee ma aha inay meel u fadhiyaan dowlad waqtigeedu dhammaan beesha caalamka waxaan rabaa inaan u sheego inaan uga dignay arrimahan iyadoo qoraal ah iyo iyadoo af ah haddii aad tusaale u baahnaydeen xalay iyo maanta idinkugu filan haddii aad sii fiirsataan idinkuna waxaad qayb ka noqonaysaan dhibaatada iyo gumaadka shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay meel walba oo ay joogtaan dadkeennan siyaasiyiinta ah oo idin matala inaan bannaan baxnana inaan idin matalnana dula joojin mayno cidna cabsin gelin karta oo naga leexin karta dalkan in lagu hago dariiqa ay xaq u leeyihiin dhalinyarada naga da'da yarna ka leexan mayno waqti adag ayaa lagu jira waqtigaas adag wuxuu u baahan yahay caqli iyo xikmad xoog iyo qoray uma baahna tanaasul iyo turid ayuu u baahan yahay tuurmo iyo taraanturayn uma baahna sidaas daraaddeed ayaan leeyahay dadka Soomaaliyeed waxaa la soo gaaray waqtigii aan inteena badan oo xalka raadinaysa meel ka soo wada jeesan lahayn si aanu dalkani mar kale ugu noqon meeshii mugdiga ahayd u ka yimid waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ilaahay ka baryaynaa marka hore dad Soomaaliyeed aan ahay intii maanta iyo xalayba ku dhaawacantay dagaalka arxan-darradaas oo madaxweynaha waqtigiisu dhacay oo amarkiisa bixinay dadkii xalay ku dhintay iyo wixii ku dhaawacmay iyo inta maanta ku dhimatay ama ku dhaawacantay ilaahay ha bogsiiyo intii dhaawaca intii dhimata Allah u naxariisto dhaqaalaha ay burburiyeen oo dabkii innaga lagu fidayay ku burburayana ilaahay sabar naga siiyo intaas kadib waxaan rabaa walaalayaal aniga inaan idiin sheego anigu oday Soomaaliyeed aan ahay waxaan sheegnaa dalkan inuusan u baahnayn dictator waxaan sheegnaa madaxweyne waqtigiisii dhacay ummadda iyo isaga inaanay heshiin karin waxaan sheegnaa haddii aan runta la isu sheegin madaxweynaha xilkiisii dhacay aanu aqbalin in xilkiisii dhacay qaato iyo dagaal iyo burbur in laga dhaxlay ayaan sheegnaa intaas oo ku salaysan runta dimuqraadiyadda iyo xorriyadda qowlka intaas ayaan u dhimanayna annaga saaka annagoo bannaan baxayna oo sheegayna oo dagaalka hortegayna oo le dalkan dagaal uma rabno kaligii talis uma rabno burbur dambe uma rabno annagoo leh ayaa nala soo weerarkaas dad ayaa dhibaata ka gaartay dadaa ku dhintay waa dhibaato waxaan rabaa aniga inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego aniga farmaajo waxba u sheegi maayo wax badan aan ka sheekaynay dimuqraadiyadaan ka dalabnay doorasho madax bannaanan ka dalabnay dalka u turaan ka dalabnay waa naga diiday
wuxuu rabaa asagoo waqtigiisii dhacay inuu xoog dadkan ku maquulo annaguna waxaan u jeednaa inaan dadkaanu xoog aqbalay ee dhibaato iyo burbur la dhaxlay asna uu meel daran ku dambaynay annagana uu dhibaato noo gaarsiinay taas annagoo ka hortegayna ayaan waxaan ku haynaa warka joog warka joog warka joog waa diiday asaga iyo shacabka Soomaaliyeed u taal marka si isaga fuji lahaayeen annaga waxaan sheegaynaa markasta intaan nool oo aan ka gambani inaan afduub lagu haysan karin dadka afduub laguma haysan karo qarnigii 21 ku jiraan waxay diideen dictator hore u diideen cid kastay ka soo horjeesteen konton kuna Itoobiya ay iska dabaha ku direen walaalow maxaa ku qaaday damac asaas ma iska deys damacaad oo mata ku suura geli baa aniga waa iga digniintaas farmaajo intaas u dhaafay maayo dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan iraado Soomaaliyeed waa u jeedaan cidii islahayd madaxweynaha waqtigiisa hal la sugo annagu waxaan aragnaa isagoo waqtigiisa jooga inaan ka soo Soomaalinimo aanu rabo xoog noo rabo laakiin cidii islahayd waqtigiisa ha dhameesto waqtigiisa waa dhameystay haddii uu dhameesto wuxuu bilaabay inuu dadkii laayo haddii uu dhameesto inuu dadkii laayo bilaabay saad xorriyadiina uga ceshan lahaydeen oo madax bannaanidiina u soo ceshan lahaydeen oo dadkii irdaha laga fadhiistay irdaha u furan lahaydeen oo sida xoor lahaydeen kale talis aan sharci haysan adinka idin taala wabillahi tawfiq بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد إنا لله وإنا إليه راجعون marka hore waxaan u tacsiyeynaa dadka saaka dhibaatada loo geystay oo mudaaharaad ay iyo kuwa xal loo geystay labadaba aan leenahay waxa dhintana Allah u naxariisto waxaan dib qaba Allah shaafiyo waxaan tiyo halka ku burburana Ilaahay bedelkooda hasiin marka intaas kadib waxaan ambaarin dusha uga tuuraynaa weerarka bahalnimada ah oo dardarrada ah oo aan waafaqsanayn sharciga meelna ka waafaqsanayn wadaqonnimada oo fulinimada kaasna ambaareen dusha uga tuurayna oo amarkeeda leeyahay madaxweyne hore xilligiisu dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo taariikh xumadaas inay wax saaka lala yaabo ah haddii asagoo waqtigiisa dhamaaday aan waxba u harin oo isku dayayo inuu maaragtay dadka xoog ku maquuniyo oo doorashada hore u diiday oo hadda dadku inay bandhigaan shirkooda soo jeediyaan oo diidan yahay oo caburin iyo maaragtay xabad ay saaka mareen nasiib darradaas inay la soo gudboonaato saaka wax lala yaabo waaye ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba waa ugu tacsiinaa madaxweyne ay doorteen oo sida sharciga loo doortay saaka asagoo waqtigiisa dhamaan dadka inuu xabad la dhex taagan yahay oo uusan hadlayn oo marka taasaa wax lala yaabaa nasiib darro ummadda Soomaaliyeed soo waajahday waaye asagana taariikh xumay u tahay iyo baal dahab baal madow uu ka galay taariikhda ummadda Soomaaliyeed taasna waxaan leenahay horumar kama waafaqsana meelna kama waafaqsana bani aadamnimadana meelna kama waafaqsana arrintaasna ummadda Soomaaliyeed uga tacsiyeynaa ayada dhibaatadaas oo uga tacsiyeynaa asaga waxaan leenahay dadkan iyo dalkan dhibaato uma cusba dictatorship uma cusba kaliya tali uma cusba dhibaato badan ay soo mareen qof walba dhibkaas geystana taariikh uu ku dambeeyay meesha ay ku dambeeyeen meel ka duwan ma aadaysa taariikh umada dhaxle haddaad xabad aadan xabad waxba ku qaadi mayso wax kuba waayo adaa ku dhimana marka waxaan leeyahay hadda isdaba qabo yaan qorraxdu kugu dhigay filla Soomaaliya haddaad qof wax karta tahay haddaadan garanna haddii wanka way jeer la biray dhiciis orada ma arkaan dad gowrac sugaya waa ku imaan doona halkaas taas halkaas ii joogay dowlad goboleedyada nimanka oo shanta ah waxaan leenahay ummadda Soomaaliya masiirkeeda maanta adika la ka raba farmaajo uu jeedin meesha uu taagan yahay ummadda Soomaaliyeed masiirkeeda kala hadlayna hal fariisanina doorashada ka hadlina dalkan inaad samato 60 adan kay soo socda ka saaran
wax mas'uuliyad Soomaaliyeed saaran tahay maanta idinkaa jira badbaadiya dalka iyo dadka Soomaaliyeed iyo diintooda iyo sharaftooda iyo cisigooda iyo karaamahooda intaas waxaan u sheedinayaa dowlad goboleedyada Soomaaliyeed oo shanta si gaar ah waxaan ula hadlaynaa ayagana beesha caalamka waxaan ka xunnahay ninka saas u fikira oo saaka dadkii doortay asagoo xilkiisa dhamaaday xabad la dhex taagan inay dhahaan waa aqoonsanahay waana la shaqeeyaynaa taasaa wax laga xumaada wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya hadda joogahay dambi ummadda Soomaaliyeed ka galeen waxaan uga digaynaa inaysan ku sii wadin taageerada ay taageerayaan iyo la shaqaynta ay la shaqaynayaan labadaas haday sii wadaan wallaahi dambiga asagoo galin la gelay ummadda Soomaaliyeed taariikhdeeda baal madoobay ka geli doonaan wakiilada hadda Soomaaliya jooga waxaan kaloon rabnaa inaan ayadana si cad u sheegno dawladaha saaxiibada ah oo Soomaaliya sida gaarka u dacmiya oo hubka siiya oo dhaqaalaha siiya bal hadii ogaada waxaad Soomaaliya aad ku taakuleyseen oo ka xusaya waliba dawladda Turkiga walaalaheena oo sharafta leh oo ummadda Soomaaliya ayadoo god ku jirta ka soo saartay saaka wixii ay Soomaaliya u dhiibtay oo hubahay oo ciidan ahay oo risaas ahay in dadkii Soomaaliyeed badbaadisa lagu leeyahay Turkiga u sheegayna waa inay ka digtoonaadaan ninkaas bahalnimada ka shaqeynaya ummadda Soomaaliyeed halkaas la dhex taagan xabadda oo sharci ilaalihi oo majnuunka oo handicapka oo qalbiga ka jira waa inay la shaqeyn dawladda Turkiga leena qadar sidoo kaleeto haddaad Soomaaliya rabtiina Soomaaliya badbaadiyo dhibka ka daayay qadar iyo fahad taageeradooda ka daayay haddaad Soomaaliya danka leedahay dawladda qadar aan leedahay haddaad ayaga rabtiina la dhinta taariikhda ayaga way badalka soo ka galay iyagu ka galeysaan waa nimanka la yiraahdo qadar dawladda qadar aan leenahay haddaad fahad iyo farmaajo kaliya rabtiin taariikhda ay Soomaaliya gali doonaan oo baalka madow ku qoranaad gali doontiin haddaad Soomaaliya danka leedihiin ka leexda nimankaas bahala waaye waa niman dogma ah waa niman dalka loo soo diray waa niman warlords ah wax ay ku dhaqmaayaan wali lama arkin ayagoo kaleeto waxaana sugay maxkamadda adduunka oo dambiyada qaada inaan sugaynaa qofka ugu dambeeyo Soomaaliya waa inaan la tiigsanaa ayagana saasaan leeyahay hada billahi tawfiiq